وإذن سلامينا دمان داود ياش إن داونا يمل والباجوكتان ومركلة يا هوب أبوكر يا نور حسن نيكيده وإذن له منك كينا واي مالي وناكسن يا حد وناكسن يا صاحب بدن مال والباجوكتان waxaa idin rajaynaynaa nimcada iyo nabadda masiixa ka timaada maanta waxaa idin ballan qaadnay qaybtii labaad inaan duubno oo ah maxaa dad badan ay uga noqdeen masiixiyadda waxaan dhahnay waa garasho la'aan marka hore imaatinka ama khalad fikir qaldan oo loogu yimaado masiixa sidaa u sheegnay diin ma ahan masiixa waa shakhsi loo yimaado waxaana u imaan kara kuwa dareema inay yihiin dambiilayaal raadinaya badbaadiye ka furta dembigooda marka maanta waxaa jecelnahay inaan ka hadalno waxa asaaska masiixiyadda u ah oo ah waxaanu ku badbaadnay nimco ma aha shaqo aan shaqaysanayno annaga laakiin waxay tahay إلهي العريستيس المعاديس marka nuuro xoogaa noo sii faahfaahay badbaadada ilaah xaggiisa ka timaada marka uu garto qofka dambiile inuu yahay uu u baahan yahay badbaadiye soo wuxuu soo raadsanayaa ilaahay nuurta marka middan nimcaan ku badbaadin xoogaa noo faahfaahay hobay aad iyo aad u mahadsan tahay horta badbaado markaan maqalno waa qof wax laga badbaadina qof dhibaataysan oo isbadbaadin karin wax laga badbaadina maskaxdeena kusoo dhacaysa marka hebelaa la badbaadiya ama badbaada magaca badbaada aan maqalno sida runtaas sidii usbuucii hore aan ka hadalnay oo dad badan oo maanta ilaahay rumaysan diintay rabaan haystaan ay qirsan yihiin waxaa waaye in bini aadanka ilaahay ay u baahan yihiin bini aadanka kow sidii usbuucii hore aan ka hadalnay cajalada midii ka horreysay bini aadanka way dambaabeen kulligood oo dad badan oo walaaladeena hadda muslimiina wayna la qirsan yihiin aadan inuu hal dembi sida aan cajaladii hore ku sheegnay inuu hal dembi uga soo baxay jannada aadan iyo xaawo qofka markuu dambaabo oo dhibaato uu sameeyo ama baxar uu ku dhaco markaas wuxuu u baahan yahay badbaadadana waxay ka timaadaa ilaahay keliya marka sida hadda aad sheegtay waxaa waaye waxaa ka hadashay nimcona waxaa waaye sida kitaabka quduuska uu sheegay waxaa waaye wax adiga aadan macnaha shaqaysanin waxaadan istaahilin ya annaga waxaan istaahilnaa dembigeena dartiisa maxkamadda ilaahay cadaaladdiisa haddii nala ku qaado waxaan istaahilnaa inaan ilaahay ka fogaano waxaan istaahilnaa cadaab ilaahay markaa naxariistiisa ha dhimashaan istaahilnaa dembi waxaa la yidhi dembiga wuxuu keenay dhimasho marka dembiga dhimashadan hadda anagaan arkayno bini aadanka ay dhimanayaan oo dhan macnaha kooda hore waxay ku timid dembiga ilaahay wuxuu dhahay aadan iyo xaawo geedkaas haddaa cuntaan hubaal waa dhimanaysaan farcankoodiina sidaasuu dembiga noogu soo gaaray sidaas daraaddeed ayuu ilaahay wuxuu noogu soo diray mar kale naxariistiisa darteed ayuu wuxuu noogu soo diray nimcadaas marka masiixa waaye waa waxaan istaahilin annaga laakiin ay ku timid naxariistiisa iyo jacaylka uu noo qabo taas ayuu masiixa wuxuu ku noqday badbaadiye taas ayuu dembigeena macnaha nooga badbaadiyey taas waaye marka midaan maanta rabno inaan ka hadalno oo aan asal uga dhignay markaan ka fikirnay sababta oo Soomaali badan ee masiixa ugu imaadaan ay u laabtaan u imaadaan oo confuse ay u qaadeen ay u wareersan yihiin soo nimcan ku badbaadnay marka la dhahayo waxay tahay aniga ilaah inta u tago ma dhihi karo ilaahayow waan dambaabay laakiin dambi dhaafkayga waxaan shaqaystay آمين يعني وين دكذي صدقان ديبي وان صومي أنيجا وحن استاهلا إن أذيجا يسيس الدم بداف إلهي وما قدن كرنو دم بيجا أنجلني سيدا مركه هر أشياءني دم بيجا وقف ووح كجرا قف كجوديه سا وأباهي إن لجفرته ما أها only دم بداف مسيح وحو إن جفرتي dabeecaddan dembiga leh oo gudaheena ku jira Bible-ku wuxuu leeyahay awal waxaa idin talin jiray dembiga laakiin hadda idin ma talin doono waay masiixa ayaa naga furtay marka macnaha nimcada oo looga dan leeyahay nimcan ku badbaadnay oo qofka inuu garto tahay waxay tahay marka aad garato inaad dambiilo tahay ilaahay
wuxuu kuu fidinayaa nimcadiisa oo ma aha waxa adiga shaqaysan karto marka dadkeena waxay u fahansan yihiin nimcada in ilaahay looga gadan karo nolosha weligeeda ama jannada waxa uu shaqaystay hadda qaaliye waxa waaye hadda macnaha inta badan dadka muslimiinta saaxiibada ee la sheekaystay su'aal simple aan weydiiyaa waxaan weydiiyaa marka aad dhimatid camalkaaga ma ku badbaadaysaa mase naxariista ilaahay kulligood inta badan 96 qof marka aan qiyaasay waxay dhahayaan naxariista ilaahay inkastoo kitaabka quraanka uu dhahayo marka aakhira tagaan camalka shaqaysteen la miisaan la saaraa laakiin kulligood qalbiga way ku ogyiin way ku leeyihiin naxariista ilaahay ku badbaadna hadda fiiriya kitaabka quduuska wuxuu dhahaa dhammaan way dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaahay hadda fiiri quraanka waa soo baranay quraanka imasamar uu ku leeyahay oo Allah uu ku leeyahay nabi maxamed miyaan dambiidaada dhaafin inkastoo culimo badan ay dhahaan nabiga macsuum oo ahaa wax ma dambaabin aniga anoo yar waxaan dhihi jiray ilaahay muxuu ka cafiyay hadduusan dambaabin aayado badan waxay ku leeyihiin mugta marka dad badan waxa waaye waxay shoog ka qaadan mar kitaabka quduuska nabiyada dambaabay ku qoran ilaahay wuxuu ku muujinayay inay bini aadanku dambaabayaan kulligood inay dhan kitaabka quduuska waxa ku qoran dhammaantood way dambaabeen wayna gaari waayeen ammaanta ilaahay sidaas daraadeed ayuu ilaahay wuxuu noogu soo diray naxariistiisa marka hadda marka aan dadka aan usii jilciyo masiixiyaddu waxa waaye ilaahay oo gacan noo soo fidiyey laakiin diimanka kale waxay dhahayaan ilaahay ay annaga gaari karo annaga gaarayno wax annaga shaqaysanay aan ku gaari karno aniga marnaba waxa iga dhaadhici weysay oo iga dhaadhici weysay ilaahay waxa aniga shaqaystay aan la hortagayaa ya marnaba aan ii miisaamay war aniga qaadada bariiska afka aan gelinayo ma aniga shaqaystay neeftan 1 second haddii istaagto hal daqiiqo aan dhimanayo macnaha ama camala aniga shaqaystaan nolosheeda ma camala shaqay cirbad caaradeed cijidaada adiga camala shaqaystay kuma iman waa wax iska waadax taas qof in loo sheego xataa mudan ma marka taas ayaa macnaha marka waxa hadda aan ka hadlayno waxa waaye qofka marka uu garto waxa ilaahay uu sameeyay masiixa qofka marka uu imaado hadda barnaamijkan ka hadlayno waxa waaye dadka masiixa inta uu imaado hadana ka tagaa marka hore uu qoonaan dhahnay waxa ilaahay uu ka badbaadiyay markuu qofka garto markuu qofka koowda hore sida usbuuci hore aan ka hadalnay dambigiisa oo garto qofka markaas kadib oo garto ilaahay wuxuu u sameeyay ilaahay dambiga qiimaha aad u weyn oo dambiga macnaha ugu kacayso ilaahay ereygiisa ugu kacday dambigeena inuu noo dhaafo ereygiisa wuxuu noo soo diray dinid sababtaas waa kitaabka quduuska wuxuu u dhahaa injiilka Yohana sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse laakiin nimcada iyo runta waxay ku yimaadeen Yeshua Masiixa ereygiile marka sometimes dadku waxay qaldaan oo isku qaldaan waxay ku leeyihiin nimcan ku badbaadnay marka la dhahayo oo ma dambiya iska galaa oo dambigayga waa la dhaafay marka conceptiga waxaan rabnaa inaan ka hadalno nimcada inay tahay macnaheeda aniga ilaahay shaqo aan shaqaystay inaan ku hortago ma dhihi karo jannadaadaan istaahilaa ma dhihi karo waan shaqaystay awoodda iyo weynaanta ilaah uu leeyahay waxaa lagu garan karaa ya marka aad tiraahid waan kula simanahay waay marka aad tiraahid shaqan soo shaqaystay waxaana isiisay aniga waa istaahilaa waay laakiin masiixiyadda waxay leedahay aniga ma istaahilo nolosha isiisay ma istaahilo because qof dambiilaan ahay adigana qof quduus ilaahu tahay laakiin waxa aan ku awoodo inaan hortaada ku istaago maanta waa firi jannada lagu sheegayo ilaahay la jiritaankiisa waaye ilaahayna dambi ma ogola asaga inuu naga cafiyana ma ahane annaga jannadaas ama la joogitaanka ilaah kama gadan karno nolosha abidka weligeed ilaahay la noolaanaysa waxa ay iibsan kartid ma beebiyey waxa waaye masiixa ayaa maalmaha ka mid ah niman oo dadkii markii uu dadka wacdinayay oo dad oo macnaha mucjisooyin sameeyay masiixa markuu dunida yimid ereyga ilaahay awood badan oo ahaa inkastoo dunida uu yimid inuu annaga dambigeena naga furto dad badan waxay dhahan muxuu daciif u noqday ereyga ilaahay muxuu istiraatu lagu qad hada qorshahaas uu yimid markii hore wuu is inkiray kitaabka quduuska waxa ku qoran wuu isooseysay marka asagoo dadka la joogo mucjisooyin sameeyay dad badan arkeen qaar badan way maqleen dad badan markuu imaan jiray kuwa markii intuu yimaadeen waxay dhahan ilaa dadka yuhuudi ahaayeen kitaabka ilaahay haysteen waxay haysteen
kitaabka muuse haysteen towreed iyo kutubtii oo dhan way haysteen masiixa wixii ka horreeyay oo dhan marka intuu yimaadeen waxay dhaheen way yaabeen marka waxay dhaheen maxaan sameynaa si shuqulka ilaahay aan u samayn maxaan qabanaa si shuqulka ilaahay aan u samayn bini'aadamku waxay jecel yihiin inay wax ilaahay ay u sameeyaan mogtahay marka wuxuu dhahay kanu waa shuqulka ilaahay asagaa istilmaamaya kan waa shuqulka ilaahay inaad rumaysataan kii u soo diray shuqulka ilaah oo shuqulka ilaahay oo idin qabtay oo idin keenay dambi dhaaf ilaahay oo idin keenay maalintii isku talaabta masiixa lagu qodbay oo waqtiga ugu dambeysay dhahay aabo ruuxiga gacantaada u dhiibaya eriga ugu dambeeyay dhahay maxay ahayd waa dhamaatay waxa waaye hal dhibic oo ilaahay aa ku darsan karno annaga oo aan dhihi karno ilaahayow 99 noo samaysay halkaan xaban annagaa keensanay ma jirto masiixiyadda dhanba waxaa aasaas u ah oo firqo walba masiixiyiinta ay ka marqaati kacayaan maanta ilaahay waxaa loogu tagaa nimcadiisa waxaa loogu tagaa wixii asaga uu noo sameeyey dad badan ayaa confuse ku noqda nimcada oo u maleeya nimcada in la sii dambaabo waan ka hadli doonaa haddaan isku xirna waxay tahay qofka waa inuu gartaa inuu dambiilo yahay dambigana uu yahay dabiicad ku dhex jirta oo u baahan yahay qof ka xoreeya waxaana ka xoreyn kara waa nimcada ilaah marka aan u tegayno oo la joogayno jannadiisa waxa kuma mutaysan karno wax annaga aan shaqaysanay oo aan ilaah kaga gadanayno jannadiisa ilaah jannadiisa iyo la joogitaankiisa kama gadan karno waxayna noo cadaynaysaa daciifnimada annaga aan nahay iyo ilaah naxariistiisa awoodiisa jacaylkiisa inuu nagu abuuray naxariis inuu nagu badbaadinayo naxariis marka waxaa imaanaysa haddii qofka uu yiraahdo oo annaga waa ognahay inaan naxariis ku badbaadayno oo masalan ilaahaan dambi dhaaf weydiisanaa marka midda ay kaga gadisan tahay oo masiixa looga baahan yahay noo faahin kartaa marka oo leeyihiin ilaahay yani waxay leeyihiin ma ogtahay aniga haddaan rabo dambi dhaaf ilaahu ii dambi dhaafaan dhihi karaa laakiin bible-ku wuxuu inoo sheegayaa dambiga wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay natiijo dambiga wuxuu leeyahay wax ka yimaado cuquubuu leeyahay waa runtaa waxa waaye ilaahay sida aan sheegnay cajiladda hore ku sheegnay waxa waaye ilaahay caadil waaye maxkamadda caadilka waddankan hadda aan joognay iyo waddan walba constitution uu leeyahay wuxuu leeyahay xeerka waddanka waxa waaye qofkii tuug ah xarig wuxuu istaagalaa 20 sano oo qofkii hanti dadweyne dhaca intaas u istaagala hadda qofkii tuug haddii la dhaho xarig wuxuu istaagalaa 1 sano maxkamadda caadilka markuu u yimaado qofka tuuga ah xarig wuxuu istaagalaa 1 sano waa xarigaas inuu muto haddii maxkamadda caadil tahay ilaahay koodii hore wuxuu dhahay aadani xaawo geedka saddex cuntaa hubaal waa dhimanaysaan natiijada dembiga waa dhimasho mushaarada dembiga ilaahay marka hore uu sheegay ilaahayna isma bedelo sababtaas ayuu ilaahay cadaaladiis masiixiyaddu waxa waaye cadaaladda ilaahay iyo naxariista ilaahay jacaylka ilaah isla socdo cadaaladii ereygiisa ayaa cadaaladii mutay ereygiisa ayaa dembigaada u dhintay ereygiisa ayaa ciqaabtii dembiga la dul saaray masiixa ayaa wuxuu dhahay maalintii beerta geedsamana uu ku jiray uu ooynayay masiixa wuxuu dhahay aabbow iga badbaadi koobkan hadday doonisteeda laakiin noqontaada ha noqoto isku talaabta markuu saareen muxuu dhahay maxaa ii dayrisay aabbow maxaa ii dayrisay waa ereyga ilaahay oo jir soo noqday oo adiga iyo aniga dembigeenna ilaahay u deeriyey ya wuxuu mutay ciqaabtii dembiga annaga aan mudan lahayn asagaa marka wuxuu dhahay ilaahay wuxuu dhahay ciqaabtii aan mudneed nuurow hoobay ciqaabtaa mudneed hebelow kana daawanaya ciqaabtaa mudneed waxaan dul saaray ereygay haddaad rumaysataan waa badbaadaysaan kitaabka clear waa qofka wuxuu isdhihi karaa moogtahay bini'aadamka waxay iska jecel yihiin inay wax un sameeyaan ayaga annaga waan naqaanaa moogtahay bini'aadamna waxaan ku faanaa rabnaa si kitaabka waxaa ku qoran si aysan qofna ugu faanin inaan ku garan nimcada waa inaa ilaahay inaad dhahdo 100% wax walba oon haysta adiga iskale adiga isii wax walba hoobay ilaahay baan kugu dhaariyay marka caadiga aan u fikirno aniga dharan xirta qamiis cad haddaan xirto iyo barfuun haddaan isku buufi iyo maanta dheelka haddaan cadayso iyo maanta saacadda midig haddaan ku xirto ama surwaalka aan gaabay Soomaaliya waa ardada waxa arkaysaa surwaalka waxay ku joogaan jilibka hoos wuxuu ku leeyahay ilaahay caroonay haddii qofkina cuqdada ka buuxdo qabyaalada ka buuxdo xaasinima ka buuxdo waxba ka buuxdo dhar cad kasta haddaan xirto masiixa wuxuu dhahay sida qabuuriyaala tihiin wadaadada markuu ku wadaadada uu canaananay badda iyo dhulka meertaan u dhahay si qof ay u soo hadeysaan u maleynaysaan laakiin in idinka daran ayaa qofkaas u dhimisaan waayo qofkii wuxuu u sheegayaan waxaan macnaha sax ahayn marka wuxuu dhahay qabuuro waxa ogtiin la cadeeyay kor laga cadeeyay laakiin hoosta ka ah lafa dhintay iyo qurun ka buux marka aan garatid adiga
walaalkana dhegaysanayo markaa garatid qurunka kaa buux oo gar weynaa la baxid ama astaan diimeeda qaadatid ama meelaa u jeesatid ama dharaa xiratid ama shuqulo diinaa samey ama kutuba ay akhrisid maanta dhan 1000 sano haddaa sujuudsanaatid kowda hor waxaa ku hortaala dembigayga iga qaadi karo cafinta marka masiixa waa muujinta cafinta ilaah uu cafiyey because marka uu crosska fuulo waxa waaye wuxuu qaatay dembiyadeenna ciqaabtooda marka lagu dhahayo waxaa istaahilnay waana ilaahay wuu ku cafiyaa laakiin dembiyadaadii aad samaysay waxa ku istaahishay ciqaabta ku istaahishay ma garan kartaa halahay dhan tahay ma garan kartaa sida ay tahay iyo briceka loo bixiyo dembiga wuxuu yahay dhimasho keenay marka dhimashadaas waa masiixa waxa uu ku cadaynayo crosska oo ah ciqaabta dembiga sidanay mutaysatay asaana inaga qaaday waana wax ilaahay ugu talagalay fiir waa wuxuu ilaahay ugu talagalay fiir ilaahay waxa waaye hab ayuu waxaan u abuuray أنا ما أنت 20 طبق هدي أنا كسر تروح كسر دعاء لك ما أنت 20 طبق هدي أنت كسر تروح ما أنت أنا عندها سبحان الله إله وأذان الزهن وعن كسر دعاء لك كرياس والسيستم إله وسمي إنه وحول بقى مركب وحوي أنا قدم بيجينا هدي لمشوا يستاهل ما أنت أنا سبحان الله الحمد لله أستعمل ديمات أطاق هذا وحاصل إن كامت تركت إلا أسومر تدوح إلهي مسيحة محورها مسيحة محورها نمنكي وذا هاي وشكم لنا إني حقيهين وحورها هدادر وما يسنن إنان أساقي هو بالدن بيدينا يا أساقي إنا هدادر وما يسنن مركو هروا حروا ما يسنن إنه أساقي ربي جاي أساقي إنه يهكينا لك عبور إلهي فيريا سيدو إيبت بهذين كرا قف بنا آدم وددا حتى أكون دعوة ما مسيحة الضون وهاي شدو إيبت بهذين الضون ما هي مسيحة وحوها أرجع أنا قلنا لك سمي الصقيو إلهي نوصل ضرورة أرجع إذا كسمي كلية إذا دايرين كرو تاس وصيفة فاهمنا لكن هذا حرمنا إنا وبانو خوفك حتى إنه نمعكو بدبادو إلهي وله ارتقي كريم وحو شقيستي يعمل وسميي يأكشن وجرك كسميي إله قلوب تأ وحين نوجيني ساتاس إسهوسيسين إنان قرنو أنك إنان ضد أود لي أحين وإله ويهي إله نحريس بدن وأسجع وباهناي وأسجع وحول بقول أنا كوا حقرني أنا كنت مباون إلهي أسجع إنه إله دايري أنا ندبليال أسجع كلي ونحريس تيسه هو تذكرنا أسجع مركز سيدا أنا مركز هرسي شيء concept أو إله إن سيدي هراء أن قاني مأهان واسع عصب ضد كان إيمانايو أو كان نقنايو معناه هرتكوا إني فهمان إله siduu bible-ka uu ka sheegayaa marka masiixa iyo dhiigga salibka ku daatay waa balaankii ilaah because qorshaha ilaah wuxuu yiri dambi dhaaf ma dhacayo ilaa dhiig ma ahani ay qofki qof dilo naf loo bixiyaa soo maaha marka dhiigana waa concept adduunka oo dhan ay yaqaaniin oo nafaf ay nolosha dhiigga ku jirta kitaabka wuxuu leeyahay nolosha dhiigga ay ku jirtaa marka waagii hore waan ka soo hadli doonaa in Old Testament dambi dhaafka waxa loo sameyn jiray aryaa loo qali jiray aryahaas laakiin dambigu way dabooli jireen laakiin ma baabi'in jirin wuxuu ahaa hooska waxyaalaha imaanaya yani masiixa marka waxa lagu muujiyay oo dhiigiisa daahirka ah oo ilaah lagu muujiyay inuu yahay dhiiga kaliya oo lagu badbaadi karo maalintuu masiixa salibka ku dhintay kadib uma baahnin annaga inaan aryo qalno uma baahnin xataa sida hadda ma aha juushka kaliya nuuro laakiin diimaha adduunka dhan xataa cabadata shaytaan waxay sameeyaan dhiigay qalaan marka dhiigaas only dhiiga masiixa ayaa badbaado ama kafaara gud noo noqon karo marka dhiigana waa kasii hadli doonaa marka maanta waxaan noogu soo gabagabanaysaa adaa marka noo soo gabagabanaa laakiin wax yaraan rabaa inaan ugu daro oo macnaha aan dhaho dadka waxa waaye anaga waxaan hadda intaan aan ka hadlayno waa wixii yaraado ilaahayna waafajiyey inaan idinla soo gaarno kitaabka quduuska wuu yaalaa meel walbuu yaalaa kitaabka quduuska af soomaali ah annaga sida iskeen ilaahay noo waafajiyey inaan u aqrisanay kitaabka quduuska yaan lagaaga sheekayn iyo qof kale kaaga sheekayn ilaahay adiga hortag ilaahay u tag ilaahay ereygiisa aqriso soomaaliya maantay kumanaan soomaaliya jiro oo dhiig qabaan ya
sidaan sheegin dhiigay qabaan dhiigna waxaa la yidhi naf loogu weyna ogyihiin diintooda xataa inay leedahay way ku waarayaan horta hadday dhahaan xataa icafi yaa ku cafin karo marka waxaan rabaa inuu sheego war walaal dhiig haddaad qabtid iyo haddii aad qabyaalad kugu jirto iyo haddii aad dad soomaaliya dhibaato u geysid iyo haddii aad maanta zaani tahay iyo haddaad waa dembiilayaala wadanaa kulligeen waa kala duwan yahay dembiga dibnaanka sameeyaan haddii aad noloshaada ka garatay inaad dembiila tahay oo iscelin la'dahay oo dhibaato ku haysato oo iscelin la'dahay walaal ilaahay u imaaw ilaahay dembiyadaada u qiro ilaahay la hortag masiixa waxa waaye ilaahay markuu dembiyadaada kaa cafiyo magaca masiixa kaaga cafiyo wuxuu ballan qaaday ruuxiisa inuu kuusoo diraa ruuxiisa ayaa kaa daahirinayo waxaanoo dhan oo kaa yeelaya sida asaga uu doonaya inaa u socotid ilaa maalinta dunidan aad ka tagtid oo boqortooyada ilaahay oo abida ugu noolaatid marka intaasaan kusoo gabagabaynaa ani xaggayga marka waxaa idin leenahay kulan dambe haddaa su-aalo ka qabto yani wax generalan ka hadalnay annaga qofka masiixa uu imaanayo markuu dembiyadiisa garto inuu only yahay ilaah kan ka cafinayo oon ilaah ugu tegi karin waxyaala aan shaqaysanay dembi dhaafkana uu u baahan yahay qiimo la bixiyo qiimahaasna waxaa bixiyey masiixa marka haddaad jeceshahay oo aad dareentay inaad dembiilo tahay oo aad dareentay inaad badbaadiyo u baahan tahay qof kaa xiga male masiixa waad aamini kartaa badbaadadiisa badbaadada mid kale kuma timaada la yiri ilaa masiixa maahane marka waxa waaye waad weydiisan kartaa ilaah dembi dhaafka waa weydiisan kartaa inaad rumaysan tahay gacanta kuu soo fidiyo oo ah masiixa waad weydiisan kartaa inuu kugu cafiyo masiixa ilaan markaas dembigaagii waa la qaaday yacni barayskiisa waa la bixiyey oo la muujiyey marka waxaa idin leenahay sidaa iyo kulan dambe waa ujeediin habeen aan nagu soo galay inkastoo maalin aan jecleen inaan duubno waxaa idin leenahay kulan dambe rabbiga ha idin barakeeyo nabad iyo naxariista ilaahay idinla jirto maca salaama